kaabunka barakacyaasha ee duleedka magaalada Buuhoodle gaar ahaan Shangalle ayaa waxaa ka jirta xaalad biyo la'aaneed iyo sidoo kale mid cunto la'aaneed. Gudoomiyaha kaabunka barakacyaasha ee deegaanka Shamed Cabdirasaaq Saleebaan Aadan ayaa ka warbixiyay xaaladda kaabunka barakacyaasha ay haatan ku sugan yihiin. دراسة السياسية ولي أصلا بلاون يعني أساسيات النوش واحدة تهوي هي بعد دودر القدر يا الحمد لله القدر يا قدر باتي يا قدر هوي يا قدر جاس النوش حولي نوضع نطلق هذا ولي أم بلاون يعني وحوي قويس الديارين ويعني على واحد مكتوب عليه رسالة إلهي قدر إلهي ويري wax kasto ilaahay uu abuuray inuu risqiisa qaaday inuu si mooyaan wax kale ay qaban jiraan waliba fiibaad dhowr boqol qof mar ka harsiisay marka dadkaas waxay qabaan jira haba yaraatay waxyaalaha ugu daran imka waxa weeye waa biyaha weeye dadku waxa ka soo dhaansadaan balka Shangalle oo masaafo xoogaa leh wajigta qaar bay 2 kiiloomitir ayuu jira waxa weeye balgu dadkuna dad waxay u badan yihiin aan awood iyo tamar lahayn oo maanta hadday laba calaw soo qaataan oo karsadaan waxa karsadaan ay helaanba haddana waxa weeye way u baahan yihiin biyo waxa weeye number 1 waa riig baan aad iyo aad u baahanahay 100% meesha macaamada male caafimaadkaas oo balan qaadan mooyaan habeen aad tegay ahaan waxa qabto ma jirto salaamna quraanka sidoo kooban yahay walaalayaal waxaanu nahay dadka degan kaamka Shangalle waxaanu nahay dad aad u baahan baahidaas oo dhamaan na saameysay oo biyo la'aan leh oo cunto la'aan leh oo hooy la'aan leh oo caafimaad la'aan leh oo iskool la'aan leh oo malcaamad la'aan leh oo masaajid la'aan leh oo wax aanu gacanta ku haynaa aysan jirin deegaanka inta la eeg oo ka kooban 2008 qoys muddo 9 bilood WFP kaadh oo gaadha ilaa 700 kaadh wax ka horeeya wax ka dambeeya toona maanaan qaadan kuwaasna hadda sanadka way naga jeesteen biyuhu way noogu daran yihiin oo dhaqankaana ku dhaansanaa meel indoor noo jirta ilaa baliga Shangalle ayaa inta ugu dhaansadaa dadaan baa dhaansada caruur yar yar hooyooyin maxaabiyoyin umulooyin macallin dad aad u awood daran baa dhaansada dadkaas ay ku soo dhaansadaan ilaahay uun baa og oo xaaladda ka warrami kara wax kale oo xaaladda ka warrami kara jiraan haddii dadka leeyahay wax haatan gacantaba ku hayna haba yiraahdeen jirto oo ma jirno waad u jeedaan bulasha ku jirto waad sawiran kartaan wax caafimaadkaas la leeyahay hadda sanadka soo gaaray waxaan ahayn gacanta ku hayna haba yiraahdeen ma jirto inta ma haysano wayaan gala ma haysano aan xidhana ma haysano xanta aad aragteen waxayna kaga ma jiro hadii ay beddelay nimcadaas ilaahay baa alxamdulillah wax kale oo dhibaatadaas aan qabno dawaad aragtaan oo jeedaan waaya assalaamu halkani waa qaxooti Shangalle waxa ku nool dad gaaraya 2008 qoys ummadaasi ka soo badan cid kale oo u ballan qaaday ama waxa ay sugayaan ma jirto ilaahay inbay sugayaan marba waxay WFP waxay keentay dad gaaraya ilaa 700 ilaa 700 oo xara ay kala samaysay
intiina sanadkan ay kaga dhamaatay wax kale oo gacanta ku haya ma jiraan dadkaasi waxay u baahan yihiin waxbarasho caafimaadkaas oo hal sano imika kaasoo baanu hadda gacanta ku haynaa oo noo bilaabanaya wax kaloo ma jiraan baahayaa hadda ugu daranayaan noogu darani waxa weeyaan biyo la'aan baan haysa riig baan u baahanahay riig lambar 1 masaajid male malcaamad male iskool male dadkaasi waxay u baahan yihiin wixii bini aadam loo qaban jiray ayay u baahan yihiin dadkaas wassalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب ورسول الله ومهدله مهد الله بنوعلنا مهد الله بنوعلنا مسلمين تا ميلي جوكتبا وحي واحتريا مسلمين تا وكالمين يا لا وكالمين لنا نجوا أكام كشن قال لي لما كن يسديد نجوا ودتك أنت على عدد كالي ودقي هاي هل كان إلهي ودقي هاي وحكلوا قعنتك وهايام وحكلوا ملح وكين أين تشرين تتكاس إلهي بركة قعنتك سبحانه وتعالى ودقي هاي وحانو مركا دوينا وحنا عاونا هيا إن نجا عاويان ولا راهي إسلامات سيدا هل كان باهدا طالب هذا فربنا باطل باهداس وحكوا بكرة إلهي ومبابين كره لكن المسلمين توحي حقا من كرادي أربعين مهد علينا ومهد سيهم كوا صوبة يكوا حلولنا يكوا كيني خير بركة الله سي باهدا وحوي وبيان هرات باتره هو إلهام بانو قبناه هرات هذا بدن بانو قبناه باهي ولا قباه ملعامد ملهن اسكول ملهن محي هاي توي ملهن مساجد ملهن واحد قاراه وما أنت محي هاي توي محي المسلمين تهات حقا بني وحنا الرسل مجران توحنا عادي عادو ومهد علنا وحنا تريا هنا gacan qabasho wanaagsan nasiyaan baahida naga biyan wixii ay noo qaban karaan aad baan ugu mahad celinaa aad baan ugu mahad celinaa muslimiin waxa noo qaban kara way soo dhaweynaa gacmo furan iyo qalbi furan baan ku soo dhaweynaa baahi aad fara badan oo meesha iyo malcaamad laan iyo iskuul laan iyo masaajid laan iyo biyo laan biyahana aad iyo aad baahida iyo biyo way xigaan Soomaalida waxay ku maamulada sal baa lagu fadhiistaa lagu ma fadhiistaa soor baa lagu fadhiistaa baahi way taala laakiin biyo ka simiisan yihiin oo waxyaalaha biyo dadka xakamaha u aweeyay marka waxa weeye baahidu biyaha ugu badan tahay baahidu waa fara badan tahay yani dadkaas waa dad fara badan oo dadka labada ku inta ma haystaan hay'ad kuma xidhna cid wuxuu ma keento shaqo male meherad male ma laga shaqeysta male marka waxa weeye dadka baahidu qof kasto islaami uu fahmayaa waxba gacanta ku haynin meherad iyo magaalada joogin marka wassalaamu calaykum